kulanti wanaagsan daawashana qiimaha badan waa mar kale iyo barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka gaanka daawashana qiimaha leh barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka waad ogtihiin maanta barnaamijku waa iyo qaybihii kale horfadhi media ku daawateen xogo aad iyo aad u waaweyn ayaa daawateen oo ay ka mid tahay wararka ay ka mid tahay Israa'iil oo Iron Dome keenaysa Ethiopia oo carartay dhinaca Israa'iil iyo dagaalka proxy warka iyo dagaalka dadban ee dawladdu isku dhex dagaalayaan dagaalada kale ee adduunka ee halista leh waxyaalaha iyo waxyaalo badan oo ka tira beela ayaad maqasheen haddaba waxaan rabaa marka u horeysa wararka saxda ah aad helaysaa anu kuma lihi horfadhi kaliya ku xidhno laakiinse waxaan ku leeyahay oo aan aad iyo aad kugu soo jeedinayaa dadka wararka fahamsan ku xidhno waliba haddeerto waxaan aad iyo aad aan rabaa inaan halkan idiila socodsiiyo intiina ogna wada ogtiin dadka carabta ahaa aan u hambaliyeeyo dadka wariyaasha carbeed ee walaalaha ah runtii aad iyo aad iyo aad bay u fahmeen caalamka soo soconayo waa I'm very satisfied wallahi say u fahmeen runtii wariyaha Soomaaliga ah ee hadda raba inay wararka caalamka ka hadlaan waxaad moodaa 5% 2% hadda doontaan aniga igu dar inayna aad u fahansanayn laakiinse runtii ayagu aad iyo aad bay u fahmeen waxay fahmeen dynamicska adduunka soo socdo bay fahmeen waxay kaloo fahmeen cilladaha waaweyn ee madaxdooda haysata kadib haddeerto adduunka hadda wadamada carbeed oo dhan u fiirso warbaahintooda gal falanqeeyaashooda nin walba wuxuu keenayaa xogaha dhabta waxyaalaha ka qaldan madaxweynayaashooda kas wuxuu ku leeyihiin haddayna ansixin dowladihii ma sixi karna bay ku leeyihiin wadankii lama rangaree karo cadowgana la iskama celi karo sidaa daraaddeed qodobkan maanta waxaan rabaa inaad ku booriyo intiina luqadaha taqaanaa wadamada carabta warbaahintooda ku xidhnaada aad baan idinku soo jeedinaya weliba dadka ragga janaanada waaweyn leh aad ugu xidhnaada barnaamijyada khaaska exclusiveka ah aad iyo aad u raadiya oo ugu xidhnaada barahooda bulshada iyo discussionka si u sheekaystaan si ka duwan weyse noogu sheekaysan annaga adirta markaan war keenno aan qodob keenno ano dowladda Soomaaliya maanta qaladkaas ay gashay arrintaasi saas maaha markaad fiiriso dadku waa يعني very low IQ وكحما أنا I'm sorry لكن this is the truth runta why دي أنا runta اللي شيءين وحكم بالشيء وابين إنك وحرمنا مركا IQ أديك وركاغا أديك وحن حط لقى الله وحن دولة لقى الله ما هالدولة نمدي اللي نعبيه دولة نمدي الصومالية إني جوليسته قف والبور رباسس قف كستو دمير له وربا قف كستو دمير له وضد نمالة أو أخلاقيات أساسية له وربا لكن سيد دولة نمدي الله مرن قرأي waddanka sidan oo kale looma geli karo halis aad iyo aad weyn waddanka annaga waa wadaleena sidaa daraadeed halista khatarta waddanka ku socota haddaan annagii baa warbaahin u ah oo cilaam u ah haddaanan faahin oo aynaan faafin oo aynaan ka hadlin waaya ayaa ka hadlay yaa looga tagayaa marka way waxaa looga tagayaa qof gulwada ah mase waxaa looga tagayaa qof qabiil u maskaxdiisa brainkiisa oo dhan marka la soo hadal qaadaba siyaasad uu maskaxdiisa qabiil geliso aan xogta raadinayn war arrinta adigu baar waxaan anagu sheegayno adigu baar horta marka horeysa kuurgal dadka warayso dad telefoonna wac qaraabadaada wac haddaad doontid bal caadi horta waxaad tiraahdaa bal waxaan jecelahay halkaa intaad iga dhigto meeshii maxaa xogoo taalla maxaa la yidhi bal wararka carabta iyo adduunka baadh bal wadamada qarbiga iyo warbaahintooda si wax u qorayaan bal fiiri adduunka bal halista laga sheekeynayo lagu dul ciyaarayo iyo midida adduunka dul saaran yahay bal horta uu kuurgal kolkaa ka had marka war sax horta raadiya qodobka aan maanta rabo inaan ka hadlo faallada taasaan ku koobaya laakiin wararka dhinaca kale aan dhinaca kale marka la fiiriyo dabashana qiimaha leh dunida waxyaalo badan oo horta isbedeli kara jira siyaasadaha dalalka qaarkood qaar isjalladi kara jira any minutes laakiin waxyaalaha qaarkood aan isbedeli doonin baa jira waxyaalo lagama gudbaana baa jiri doona safiirka madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Brown madaxweynaha Soomaaliya wuxuu la hadlay toddobaadkii hore toddobaadkii dambana wuxuu caayay magaalada Muqdisho toddobaadkii hore waxyaalaha uu soo wacay marka waxyaalaha uu soo wacay waxa wax ka qoray warbaahinta carabta iyo sidoo kale warbaahinta reer galbeedka miyaad aragteen warbaahinta horfadhi media ahayn oo arrintaasi ka hadashay oo Soomaali leedahay kama hadlayno BBC Soomaali ma laha waa laga yaabaa in BBC wax ka qortay laakiin BBC Soomaali ma laha BBC Ingiriiska iskale warbaahinta reer galbeedka ku daray ee ka hadashay laakiinse waxyaalaha la yaab kale ee aan laga hadal baad weydii sheegaya marka laga helo warbaahinta carbeed oo ka hadashay wariyaal carbeed baa arrinta ka hadlay runtii wariyaal Falastiiniina iyo oo arrintan hadda soo dhax galay Soomaaliya oo ogaaday arrinta qasa inay Soomaaliya dhex gashay wariyaal Yamaniina iyo ko Masaariya saddexaas ka hadlay iyo horfadhi media baa ka hadashay wax moogtay caalam islaami ay leedahay anigu warbaahinaha kale waxaan u qaanaa warbaahino reer galbeed ku leeyihiin afkay doonaan ku hadleen ama Soomaali ku hadal adad afka familkiinu ku hadlaa ku hadleen
aday ku taala wasaaradda kuwa warbaahin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda VOA waa Voice of America codka Mareykanka la dhahaa wasaaradda arrimaha dibadda federaalka ayaa bixisa lacagtooda BBC-na waxaa leedahay the British Broadcasting Corporation British waa qabiil ka tirsan Ingiriiska waa qabiilada Ingiriiska waa adoo hadeerta qabiilkaaga wala baxa warbaahin ka mid warbaahin wala bixi karta darbt saas oo kale wey laakiin waa inuu fahanka aan fahanaa sidaa daraadeed waxay sheegeen koolka ama wicitaanka ugu weyn ee Joseph Borrell uu sameeyey wuxuu ahaa inuu Soomaaliya u sheego inay ka joogto in waddankeeda laga qabaqaabiyo dagaalkan Ethiopia maxaynu laakiinse in tabi jirnay maalin walba Ethiopia tirada Tigreega waa la xasuuqay Ethiopia cambaareenana this is afka baarkiisa waa afka baar Ethiopia maxaa cunaqabateen loo saari waay Abi Ahmed maxaa waaran loogu soo gooway maxaa loogu soo gooway maxaa loo soo qabo waay genocide buu ka geystay meesha la Tigray 300,000 oo qof baa laga deyriyay dadka raydka dhintay 300 oo ciidan ku dhawaad 1 milyan oo qof baa dhintay maxaa loo soo qabo ma is weydiisay su'aalahaas oo do you raise those questions on your mind I don't think so umaleemahay because I'm mad runtii aad iyo aad baan uga xanaaqsanahay Soomaalida waxaan uga xanaaqsanahay dadka Soomaalida runtii waxaan inta isku daynaa inaan wax tusno inaan wax tusno wuxuu iska oranayaa Ethiopia maanta cid ma haysato Ethiopia godonta anu waxaan arkaa rag waaweyn oo academic sheeganayo arrinta ku sheekanayo ole Ethiopia Soomaaliya kaga adkaatay masraxiyadii iyo diblomaasiyadii wana kaga adkaan waabi halkee laga adkaada halkee laga adkaada Ethiopia halkama qaadin one step waxaan laga qaadin dambiyadii dunubaha waaweyn ay wadankooda ka dhacay baan loo kala safar steps laga qaadanay madoo Soomaaliya oo amisan yihiin argixisa tahay adduunku ka amisan yahay ayaa lagu hiilini inta Ethiopia lagaga hiiliyo hay'at المعتاد ما jirto arrintaas xaqiiqda dhabta waxa weeye marka dawladdeena Soomaaliyeed waxa lagu qoray fiila Soomaaliya kaliya baa lagu qoray kadibna wariyaashii Soomaaliyeed waxay xagteen intii fiila Soomaaliya qortay khadka telefoonka laga hadlay waxa laga hadlay waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya waxa loo ishaaray in Europeanku haddii ay arkaan Masar oo waddanka Soomaaliya kaga duulaysa ila safar doonaan Ethiopia waa facts haye maalin labaadina waxa loo sheegay oo loo cadeeyay dalka Ethiopia in dalka Soomaaliya maalin labaadina ninkan wuxuu ku tilmaamay magaalada Qasa inaysan la doonaynin Muqdisho noqoto fiiri Qasa xagan ka eeg Qasa oo saa loo burburiyay iskuuladeedii la burburiyay waxbarashadeedii la burburiyay dadkeedii la laayay oo saas oo kale ka dhacday bay yiraahdeen runtii Muqdisho kale ma noqonayso Muqdisho yaa saa u burburiyay Muqdisho wuxuu la yara bilqaystay yes waddanku uu burburay dawladnimada burburtay laakiinse tay magaalada lama burburin markii ay dagaalada soo yeeranayeen inta waqti lama burburin magaalada lama burburin maxay ilaa iyo hadda guriyihii la dhisay xilligii Talyaaniga dhisan yani ag waa bahdil iyo majiirasho la majiiranayo sidaa daraadeed yeen wax ka suganaa siyaasadeenu xagee ayay ka khaldan tahay halkee rabnaa ilaa maanta oo dhan waxay rabnaa solution Soomaa siyaasad daakhiliya ayaynu inagu awood ku leenahay Soomaalidu Ethiopia oo kale way ku midoobi kartaa waa qadiyad lagu midoobi kale waxay u baahan tahay leadership Axmed Gurey way ku midowday xilligii Said Maxamed way ku midowday xilligii Siyaad Barre ku midowday xilligii xitaa maxkamadaha Soomaalidu majority way ku midoysneen way jireen yes dawladda Soomaaliyeed oo waliba barigaas dadka kala qaybinaysay haddana dad kumanaan iyo kumanaan kun gaaraya ayaa qurbaha lacag soo dirayay wasaaradda arrimaha dibadda rag wada wasiir noqday ayaa maalin waliba abaabuli jiray ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Cali Khaliif ayaa hogaami jiray mudaharaadada Ethiopia looga soo horjeedo iyo shirarka iyo maalgelinta maalin oo tunin iiga sheekeynayay oo igu lahaa markaan Ethiopia la diriranay mar waxaan ku shiri jirnay Ohio mar State Department-kana aadi jirnay mar ilaa khasa markii dambe Ethiopia ileen in ay waddanka ka baxdo iskama imaanin dadka Soomaaliyeed baa liqi waayay ayadoo waliba markaa ku soo gashay ogolaansho dawladdii la aqoonsanaa TFG dahay so waxa loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay leadership barigaasna leadershipka maxkamadaha qaatay maantana hadaba leadershipka ayaa loo baahan yahay waddankan Ethiopia ka badbaadiya isla markaana joojiye kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed ee maanta lagu shaqeynayo haddana xaqiiq doonaan laakiin inta la leeyahay reer hebel baa ka dameeya reer hebel baa Ethiopia noqday hebel baa Ethiopia noqday ma gaari doono meel cadowgeena iskama celi doono sidoo marka la soo koobo realistic waa inuu noqdaa xogtu waa inay isan noqonin mid bias ah oo ku dhisan nin jeclaysi xogtu hadday kugu qadhaadhahay dhageyso hadday ku anfacdo qaado hadday ku anfac weydaan halka ka bax Soomaha adigu saa doontayeen adduunka si guud marka loo fiiriyo hadaba marxalad wuxuu taagan yahay junction buu taagan yahay adduunku isgoys buu taagan yahay wax halkee ayuu aadaa ma dagaal buu aadaa ma nabad buu aadaa
waxay ku xiran tahay laba shay kow horta awoodda koobaad ee ugu dambaysa iyo final sayga ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala meesha horta ilaahay uu ugu talagalay uun bay ku soconaysaa laakiin ilaahay xumaan looma nisbeeyo karo ilaahay wanaag uma ka filanano laakiinse nimankan adduunka ku tadhaxay ee dadkan adduunka isi siiyey ee adduunkii ka dhigtay shay ay iyagu leeyihiin sida kubadda ay ku leeleeraan markay doonaana ay colaad uga yeedhaan markay doonaana ay dhahaan waa kan ayaa looga baahan yahay in ay baandheeyaan caalamka inay baandheeyaan oo joojiyaan digdigtan dagaalkan qase la joojiyo xasuuqa la joojiyo weerarada Israa'iil la joojiyo xasaarka xaqdarrada la joojiyo haddii kale waxay u ekaanaysaa in nabadda adduunku ay halista ugu weyneed ayagoo ay la qaylinayaan practical loo arki doono faafinta wararka waxaa geena keenista xogaha dhinaca dunisada waxaa geena fadlan fikradaada ka dhiibo wararkan iyo sida waraagtid amaanaha